kulanti wacan daawadayaal waa muuse xusho waxaad kusoo dhawaataan wararka wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen suuqa kala iibsiga waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ka mid ah Virgil van Dijk oo saxiixaya 2 sano oo heshiis kordhin ah sida Liverpool ay ku rajo weyn tahay Real Madrid oo xidigan doonaysana weli xiisaheedii meel ayuu yaalaa Bayern Munich waxa ay shaacisay in Alphonso Davies uu u furan yahay ku biirista kooxaha Premier League Arsenal oo xiiseynaysa la saxiixashada Wolves ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara ee Matheus Cunha mar haddii weerarka kooxdani ay doonayso inay iska soo xoojiso daawadayaal qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu hayaa oo dabcan xiise leh inoo subscribe gareeya qaybta YouTube-ka sidoo kalena Facebook-ga like-ta iyo follow-ga inoogu dhufta waanaad ku mahadsantihiin la socodkeena haddii aynu ku bilowno kooxda Liverpool ayaa kalsooni ku qabtay in 33 jirka waddanka Netherlands ka soo jeeda ee Virgil van Dijk uu kooxda heshiiska u kordhin karo isla markaana uu saxiixi karo 2 sannadood oo qandaraas dheeri ah sida uu warinayo wargeyska Team Talk Real Madrid ayaa hadda u muuqata inay kasii dhammaanayso xiisayntii ciyaaryahanka Virgil van Dijk ee difaaca ka ciyaara oo horey ay iyadu u xiiseynaysay inay la saxiixato weliba si bilaash wargeyska Marca ee Spain ayaa sidaas isna warinaya kooxda Bayern Munich ciyaaryahanka difaaca bidix uga ciyaara ee Alphonso Davies oo 24 sano jir ah kooxaha Premier League waa uu ku biiri karaa Manchester United Liverpool iyo kuwa kale ayaa xiiseynaya xidigan oo bandhig fiican ka sameeyay horyaalka waddanka Jarmalka Canada ka soo jeeda TBR Football ayaa sidaas isna wariyay kooxda Manchester United waxa ay qiimaha lagu iibsan karo u sameysay ciyaaryahankeeda Marcus Rashford oo 50 milyan oo pound ay madaxa ka saartay 27 jirka waddanka Ingiriiska ka soo jeeda oo inuu fursad ka helo kooxda ay aad u adag tahay Calf Offside ayaa wariyay Arsenal waxay indhaha ku haysaa 25 sano jirka kooxda Wolves weerarka uga ciyaara Matheus Cunha kaasoo weliba si sahlan lagu gadan karo mar haddii kooxdani ay u laabato heerka hoose waa Wolverhampton sida uu warinayo wargeyska The Atlantic Brazil xidiga garabka uga ciyaara ee Anthony waxa uu helayaa dalabaadyo tan iyo markii uu ku fashilmay kooxda Manchester United inuu boos joogta ka helo bisha January waa suuragal in 24 jirkan uu isaga tago garoonka Old Trafford Give Me Sport ayaa wariyay Dani Olmo wakiilkiisa ayaa gaaray magaalada Manchester si kooxaha Premier League qayb ahaan uu gala hadlo la saxiixashada laacibkan waxaa ku jira Manchester United Manchester City iyo kuwa kale kooxaha danaynaya xidiga kooxda Barcelona oo Barcelona ay ku fashilantay in ay diiwaanka ku darsato 26 sano jirka reer Spain ayaana bisha January 1 marka daaqada kala gadadku ay furantaba si toos ah ugu biiri kara kooxdii uu doono haddii ay iibsato sida wargeyska Mail uu isagu warinayo waxaa jira fursad weyn oo 26 jirka Paris Saint-Germain oo weerarka uga ciyaara iyo Faransiiska Randal Kolo Muani uu ugu biiri karo kooxda Manchester United haddii kooxda Premier League ay diyaariso qorshihii ay xidigan ku iibsan lahayd bisha January Football Transfers ayaa sidaas isagu warinaya kooxda Fiorentina waxay xiiseynaysaa Parma ciyaaryahankeeda 25 jirka ee difaaca ka ciyaara waayo Koulibaly xidiga la yiraahdo sida uu warinayo Matteo Moretto oo Talyaaniga u dhashay Liverpool tababar caawiyaheeda sare John Heitinga ayaa ka mid ah ragga hogaaminaya cidii bedeli lahayd Carlos Corberan oo kooxda West Bromwich Albion isagu hadda hogaamiya Football Insider ayaa sidaasna warinaya Sporting Lisbon waxay sheegtay inay bedeli doonto tababare Joao Pereira oo fashil kooxda kala kulmay shaqadana laga eriyay maalintii Christmaska waxaana lagu bedelayaa kooxda Victoria Guimaraes tababaraheeda oo la yiraahdo Rui Borges sida Sky Sports uu isagu warinayo isagaas ayaa ugu dambeeyay wararkii wargeysyada iyo suuqa kala iibsiga waxyaabaha ka qoreen Muuse Xusho ayaa idin la socodsiinayay daawadayaal inoo subscribe gareeya qaybta YouTube sidoo kalena Facebook-ga follow-da iyo like-ta noogu dhufta waanaad ku mahadsantihiin la socodkeena